haddaba maadaama 4 sano ee la doortay madaxweyne farmaajo ee hadda dhamaatay muxuu dastuurku qabaa maxaase lagu tilmaami karaa xaaladda hadda taagan ee sharciyan waxaynu ka wareysanay Caydiid Ilka Xanaf oo horey u soo noqday gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya. State nationku waa jiraya oo sidii markaan burburayba aanay haddana dalku u jiray wali isaga joogay waddanka nation stateku waa jiraya waa sidiisu ahaanaya laakiin nation stateku dawlad ma leh wuxuu noqonayaa nation state ama dal aan dawlad lahayn dawladnimadana waa awood horta waa awood ama xoog ha noqoto ama sharci ha noqoto marka dawlad sharciyeysan ma jirto hadda marka laga bilaabo wixii ka dambeeya dawlad sharciyeysan oo dadku doortay oo la isku raacsan yahay sharcigii la ogaa ee afarta sanadood ku socota ma jirto waayo wax laga qabtay iyo tallaabo loo qaaday midna ma jirto haddii aakhirtu tallaabooyin la qaado oo ay process socdo oo wax la qabanayo ay wax socdaan waa la sugi lahaa waa la oran lahaa intaas noqoto hatta waqtigii hore xasan sheekh ba 4 bilood oo dhow yani meel lagu tilmaamo lama garanayo yani dawlad lamana kordhin doorashada lama qaban bariga tallaabo jirtay process baa socday waxba la gaarayay waxaas la higsanayo lagu socday hadda meel lagu socdaa iyo meel la higsanaya iyo wax loo dhigay iyo nidaam midna ma jiro waa wadan aan dawlad lahayn dastuurka Soomaaliya muxuu ka oranayaa marka madaxweynaha xilkiisu uu dhamaado waa 4 sanadood bas yani waxa waqtiga loo qabtay waxa la doonayaa in nidaam uu dhajiro oo la socdo ee maaha iska fadhi yani waan fadhiyaa una meeshan iska joogaya maaha 4 sanadood waxa la doonayaa inaad wax diyaariso 4 sanadood waxa lagu siiyay inaad wax soo socdo u diyaar garowdo waxaa jira xeer ay meel mariyeen xubnaha ee baarlamaanka dabayaaqadii bishii September kaasi oo dhigayay in hay'adaha dastuuriga ay ku bixi karaan oo kaliya in hay'ado kale oo la soo doortay ay bedelaan marka xeerkaasi iyo dastuurka sidee la isu waafajin karaa mar walba hay'ad walba wax bedeli karo hay'ad kale oo soo doortay sida nidaamka dawliga yahay sideedaba inay dhigaan in ay sheegto in la dhigo midna ma ahaba kulli mid kale ayaa bedelaysa maaha ila waligeed maaha ee waa muddada la sheegay ee la dhigay waa in lagu bedelaa weeyaan dawladahan kale iyo nidaamka kale jira gidi waa wada sida ee macnaheedu wax weeye muddada lagu doortay ee meesha hayso ayaad haynaysa ilaa mid kale ka bedesho waxa loo diiday in meeshu ina vacuum jiro oo iska banaanaato oo amaran cidiba haynin ama cido aan sharci u haynin oo la diidayaa nidaamku mar walba waa sida laakiin baarlamaankan wuu iska fadhiyaa dawladdu waa iska fadhiyaysaa oo wuu iska fadhiyaa ilaa mid kale oo la doortay waligeed haddii uu ogaan weyday mid kale la doorto oo time bas ii weydo mid kale lagu doorto maxay sida noqonaysa mid fadhi baad ma fadhiyaa marka hadda baarlamaanku madaxweynaha ma u samayn karaa muddo kordhin baarlamaanku hadduu fadhiisto baarlamaanka 2/3 baarlamaanka dastuurku muxuu bay ka bedeli karaan mar hore ayaa jawaari sameeyay mid kale oo macmal wax saas oo kale ayuu jawaari sameeyo baarlamaanka mid kale la soo doortaa bedelaya marka taa haddii la raaco nidaamka wixii dadku isla ogol yahay moogta dawladnimadan iyo nidaamka oo dhamay waxa la isku raacsiyo la ogol yahay haddii sidaa la ogol yahay sidaas jirto baarlamaanka imika jira wuxuu dooran karaa madaxweynuhu dooran karaa waa ku meel gaar laakiin oo muddada uu kordhin karaa ugu dambeyntii sharciyan madaxweynuhu hadda ma qaadan karaa go'aano masiiriya oo ma soo saari karaa dawladnimadu waxa ku sheegay waa xoog dawladnimadu waa effective control waxa wanaad yani maamul haysa gacanta ku haysa meel kale oo gacanta sida loogu hayo oo aan xamar ahayn oo anigu aan garanaya ma jirto marka wala sii hayn karaa oo inta kale wadaagtay waxa ka dhacaya dalka waa looga yeelay effective control meesha kaliya lagu haya waa xamar wala sii wadi karaa baan qaban